kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Olbanaadir waxaan daawadayaal halkaan idinkugu soo gudbin doonaa oo aad daawan doontaan warbixin aan si gaar ah kaga hadlayno shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka heleen waxa loo yaqaan mootobajaajka iyadoo aan wada ogsoonahay wixii ka dambeeyay markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee dalka in aysan jirin shaqooyin gaar ah oo ay heli jireen dhalinyarada waxaana dhibka ugu badan iyo dhibaatada ay ahaayeen cid la kulmi jirtay dhalinyarada Soomaaliyeed heerka ay gaarsiisaneed shaqo la'aanta xilligaas jirtay ayaa waxay kaliftay in dhalinyaradu ay doontaan nolol ka baxsan midda ay markaas ku jiraan waxayna nolol u raadsan jireen meelo ka baxsan dalka sida wadamada dariska la ah iyo wadamo aad uga fogfog marka loo eego Soomaaliya iyadoo taas ay jirtay ayaa waxa intaas u dheeraa oo ay la kulmi jireen caqabado dhowr ah caqabadahaas ayaa waxa qayb ka ahaa in xilliyada qaar ay noloshooda ku waayaan halista ka jirta meelaha ay u tahriibayaan haddii ay ahaan lahaayeen dhulka ay marayaan ama badda xilliga ay ku socdaalayaan ma jirin dhibaatadaas cid uga garaabi jirtay marka ay soo gaarto balse kaliya waa la maqli jiray meesha ayaana lagaga tegi jiray qaarkood waxay ahaayeen kuwa ka badbaadi jiray halista xilligaas jirtay inkastoo taasi ay ahayd mid qofka si indha adeeg ah ugu bareeri jiray nolol ama geeri balse muddooyinkii dambe ayaa dhalinyaradu waxay ahaayeen kuwa shaqooyin kala duwan dalkooda ka abuuranayay shaqooyinkaas dhalinyarada loo abuuray ayaa waxaa ugu badneed wadista mootobajaajka waxay noqotay mid ka mid ah fursadaha ugu qaalisan oo ay heleen dhalinyarada Soomaaliyeed kumanaan dhalinyaro ah oo dhamaystay waxbarashadii heerka koowaad ee jaamacadda balse aan helin shaqooyinkii ay ku haminayeen ayaa waxay reerahoodu noqdeen kuwa ay ku meeleeyaan wadista mootobajaajka waxayna ku qanceen wadista mootadaas markii ay u tahriibi lahaayeen ama nolol ay u raadsan lahaayeen waddan shisheeye Muqdisho waa magaalo madaxda dalka waa meesha ugu badan oo dadka Soomaaliyeed waqtigan lagu qiyaasay inay ku nool yihiin waxaa ka howlgala kumanaan mootobajaaj ah kuwaas oo si maalinle ah u soo aada noloshooda waxaana dhalinyaradaas ay yihiin kuwa noloshooda ku maareeya wadista mootobajaajka iyagoo qaarkood kuu sheegaya in ay shaqeeyaan saacado kooban halka kuwa kalena ay yihiin kuwa kala bar maalintii shaqeeya waxay noqotay mid ka mid ah waxyaabaha dhalinyarada Soomaaliyeed u noqday fursadda iyagoo waddankooda joogana ay ka samayn karaan lacago waana beddelka dhibaatadii ay ku jiri jireen dhalinyaradaas oo markii dambe isku beddeshay mid waddankooda u noqdo mid wax ay ku qabsadaan shaqo abuurkan ma ahan mid ay hirgelisay hay'ad shisheeye ama dawlad balse waa mid ay u hirgeliyeen dhalinyaradaas waalidiintooda markii ay arkeen dhibaatada carruurtooda ay kala kulmayaan tahriibka ama markay u socdaalayaan wadamada shisheeye waxayna taasi ku kaliftay waalidiin badan in dhalinyaradooda ama carruurtooda ay ku meeleeyaan wadista mootobajaajka waa fursad dhammaan ay u siman yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed qof walbana uu si maalinle ah u soo aada shaqadaas inkastoo ay jiraan caqabado dhowr ah oo dhalinyaradaas hor yaalla xilliga ay ku howlan yihiin ka shaqaynta wadista mootobajaajka kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa si maalinle ah u howlgala waana kuwa ku qanacsan wadista mootadaas iyo qarashaadka sida maalinlaha ay ka helaan qaarkood waxaa la tilmaamaa in ay yihiin kuwa milkiyadda iska leh mootada waqtigaas ay wadaan halka kuwa kalena ay yihiin kuwa iyagoo aanan lahayn balse si kira ah u bixiya lacagta maalintii ay shaqeeyaan qayb ka mid ah taas ayaana waxay keentay in dhalinyaro badan ay waddankooda ku qancaan shaqada ay ku haystaan caqabadaha sida joogtada ay la kulmaan dhalinyaradaas ayaa waxaa la tilmaamaa inay qayb ka tahay dilalka ay u geystaan ciidanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ilaalada ka ah waddooyinka qaar ee Muqdisho boqolaal dhalinyaro ah ayaa la tilmaamaa in ay noloshooda ku waayeen intii ay kaxaynayeen mootobajaajka waddooyin dhowr ah oo Muqdisho ayaa waxaa dhacday in marar badan oo waqtiyo maalin iyo habeen iskugu jira la dilo dhalinyaro waday mootobajaaj ciidanka dawladda ee ka howlgala isgoysyada Muqdisho ayaa waxay noqdeen kuwa in badan soo celceliyay dilalka ay u geysanayaan dhalinyaradaas inkastoo hore loo ballan qaaday in wax badan laga qaban doono isbeddelna lagu samayn doono caqabadaha dhalinyaradaas ay la kulmaan waxaa la wada xasuustaa dad badan ay ogsoon yihiin markii wada mootobajaaj lagu dilay isgoyska Huludaag taas oo ka dhalatay carab badan dhalinyaro badan oo mootobajaaj kaxaynaysana ay maalinkaas dhigeen banaanbax inkastoo intii banaanbaxu uu socday dad shacab ah iyo dhalinyaro kaxaynaysa mootobajaajba ay ku geeriyoodeen waxayna taasi keentay in mootobajaajka in badan loo furo waddooyinka qaar ee waqtigaas xiriiriga ku ahaa qaarkoodna xirnaa waxay dawladdu sheegtay in muhiimadda koowaad ay sii doonto dhalinyaradaas maadaama iyagu ay yihiin kuwa dalkooda ka shaqaysta misna ku qanacsan nolosha ay waqtigan ku jiraan inkastoo taasi ay jirto ayaa caqabadaas waxay noqotay mid dhalinyaradaas ay noqdaan mid aysan ka gudbin iyaga oo kuu sheegaya in dhibaatooyin xoog leh ay kala kulmaan ciidankaas mararka qaar waxa ay ka cabanayaan xirnaanshiyaha meelaha qaar oo mootada
aan loo ogoleen in ay marto. Waxay intaas ku darayaan in si bilaah looga qaado lacagta canshuurta ah haddii ay waayaanna aysan ka howlgelin karin Muqdisho. Waxayna dawladdu dhowr mar ay ka codsadeen in wax laga qabto xirnaanshiyaha wadooyinka, maadaama dhalinyaradu ay yihiin halkii ay ka shaqayn lahaayeen wadooyinka ugu muhiimsan ee Muqdisho si ay u bixiyaan lacagta canshuurta ay ka qaado dawladda hoose. Taasi waxay noqotay mid dhalinyarada weli ay ka sugaan wax ka qabadkeeda madaxda dawladda. Caqabadda waqtigan ugu badan ee ay haysato ayaa waxay tahay xirnaanshiyaha wadooyinka qaar ee Muqdisho, halka wadooyin dhowr ah loo ogol yahay dhalinyaradaas inay ka howlgalaan. Waxay tilmaameen in ay caqabadda ugu badan kala kulmayaan marka ay waddadu xiran tahay, iyagoo kuu sheegaya in aysan haysan halkii ay dadka ay wadaan ay marsiin lahaayeen, maadaama shaqada ay qabtaan ay tahay mid ku xiran adeegga dadkaas ay u hayaan oo ah gaarsiinta goobta qofku uu dalbado. Marka dhinac laga eego, hawshoodu waa mid aad u fudud, marna waa mid aad u adag. Markii aad aragto xirnaanshiyaha wadooyinka, dad badan oo shacab ah ayaa waxay aad ugu qanacsan yihiin hawsha dhalinyaradaas ay u hayaan dadkooda. Waxay kuu sheegayaan in ay meesha ka baxday dhibaatooyin markii hore jiray. Qaarkood waxay tusaale u soo qaadanayaan in qofka marka uu daahsan yahay uusan raaci karin BL-ka, balse bajaajku ay tahay gaari kuu gooni ah meeshii aad doontana muddo kooban oo daqiiqadaha kugu gaarsiinaya. Waxayna dadku dawladda ka codsadeen in dhalinyaradaas fursadooda iyo waqtigooda la siiyo si aysan dhalinyaradaas ugu baahan in ay shaqo u doontaan waddamada shisheeye, kuwaas oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed xabsiyada ku xiray, qaarkoodna halkaas ay ku dhinteen waqti ay tahriibayeen. Waa adeeg dadku ay ku qanacsan yihiin adeegga ay u hayaan dhalinyaradaas oo ah kaxaynta mootobajaajka. Kumanaankan dhalinyaro ah ayaa waxay ahaan lahaayeen haddii ay waayaan shaqada waqtigan ay ku mashquulsan yihiin kuwa isaga hayaami lahaa dalka, iyagoo iskugu jira una badanba dhalinyaro waxbaratay, halka ay jiraan dhalinyaro kale oo faraku-tiris ah kuwaas oo aan iyagu waxbaran balse ka mid ah wadayaasha mootobajaajka ee Muqdisho. Muqdisho waa magaalada ugu badan oo dhalinyaro intaas la eg ay ku shaqaystaan wadista mootobajaajka, waana mid kale oo ka mid ah fursadaha ugu muhiimsan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay haystaan waqtigan. Ma jirto tayo ay isdheer yihiin mootobajaajka Muqdisho ka howlgala, balse qof walba iyo nasiibkiisa ayaa waxa ay tahay midda uu ku qanacsan yahay, sida maalinlahana oo ugu soo shaqo tago si halkaas uu kaga helo fursad waxqabad. Wadayaasha mootobajaajka Muqdisho markii aad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan in shaqadan ay tahay mid iyaga waqtigan ay noloshooda ku maareeyaan. Waxayna sheegayaan in ay uga wanaagsan tahay shaqo kasta oo ay ka heli lahaayeen hay-ado ama goobo si gaar ah loo leeyahay. Waxayna intaas ku dareen in shaqadan ay tahay mid iyagu si gooni ah ay u leeyihiin, gaariga ay wadaanna ay milkiile ka yihiin. Qaarkood ayaa waxay kuu sheegayaan in saacado ka mid ah maalintii aysan shaqaynin, waqti koobanna ay soo baxaan, xitaa maalmaha qaar ay maalmo ka mid ah aysan shaqaynin toddobaadkii. Waxayna taas u cuskanayaan in iyagu ay milkiile ka yihiin mootada waqtigaas ay wadaan. Fursadda ugu weynna oo ay haystaanna taasi ay tahay waa fursad aad u weyn oo ay haystaan dhalinyarada Soomaaliyeed, balse caqabadaha yaryar ee jira waqtigan ay ka codsadeen in dawladda Soomaaliya ay ka hor qaado midda ugu badan oo ah xirnaanshiyaha wadooyinka, iyo midda kale oo ah halista koowaad oo ah dilalka ay kala kulmaan ciidanka dawladda Soomaaliya ee waardiyeeya isgoysyada qaar ee Muqdisho. Markii ay murmaan, dhalinyaradaas ayaa ciidanku waxay sameeyaan in rasaas ay si indho la'aan ah ugu furaan, taasoo mararka qaar keenta in dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaaraan wadayaal badan oo mootobajaaj ah oo ka howlgala Muqdisho. Dadka qaar ayaa waxay kuu sheegayaan in dhalinyarada ku shaqaysa wadista mootobajaajka ay u tahay fursad muhiim ah marka loo eego shaqooyinka kale ee ka jira magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo guud ahaanba waddamada qaar ee caalamka ku yaala. Qaarkood waxay aaminsan yihiin in wadista mootobajaajka qarashaadka sida maalinlaha ay dhalinyaradan kaga helaan in shaqooyinka kale ee dalka ka jira aysan kaga soo bixin lacag intaas la eg. Sidoo kale, dadka qaar ayaa waxay tilmaameen in lacagaha laga soo shaqeeyo waddanka dibaddiisa ama waddamada qaar ee caalamka in aysan ahayn lacaga gaaraya kuwa ay helaan dhalinyaradan sida maalinlaha ah. Waa magaalada Muqdisho oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool ee kaxeeya mootobajaajka ay yihiin kuwa ka qarash badan dhalinyarada kale ee ka howlgala meelaha qaar ee dalka ka jira sida xarumaha gaarka loo leeyahay iyo dhalinyarada kale ee ku sugan waddamada caalamka oo aanan ku shaqayn maalintii lacagta ay shaqeeyaan dhalinyaradan Soomaaliyeed lacag la eg. Taas ayaana waxay noqotay tallaabo kale oo iyadana guul u ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku shaqeeya wadista mootobajaajka, maadaama iyagu ay yihiin kuwa lagu tilmaamo in lacaga ka badan dhalinyarada kale ee shaqooyinka kala qabta hadday ahaan lahaayeen dalka ama dibaddiisa kuwa ka lacag badan. Daawadayaal, intaas ayaan ku ekaynaynaa warbixintii aan sida gaarka kaga hadlaynay fursadaha shaqo oo ay haystaan dhalinyarada Soomaaliyeed,
kuwaas oo ku nool caasimadda dalka ee Muqdisho. Fursadaas oo noqotay midda ugu weyn ee Muqdisho maanta ka jirta oo ah wadista mootobajaajka oo dhalinyaro badan ay noloshooda ku maareeyaan ayna kaga badbaadeen khatartii ay kala kulmi jireen oo hayaamidda wadamo dhowr ah oo ku yaala caalamka, iyagoona dalkooda waqtigan ku haysto xorriyad iyo weliba lacag iyaga noloshooda ay ku maareeyaan misna ay ku qanacsan yihiin. waana tallaabo ka mid ah tallaabooyinka guusha u ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo waqtigan dalka ka jira, inkastoo ay jiraan caqabado sidaas aan u badnayn oo dhalinyaradaas ay la kulmaan waqtiyada qaar intii ay ku guda jiraan hawsha shaqo oo ay ku meeleynayaan noloshooda maalinlaha ah. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warbixinteenna iyo guud ahaanba warbixinada ka baxa janalkeena All Banaadir.